بسم الله الرحمن الرحيم. فضلا وهورين سبسكرايب لايك كومنت شير انت وسميسي ايسان كون دافين فيديوز كحيغا مادسنيد صاركتان با waxaan maanta soo dejinaya markaas Visual Studio Code isoo kale waxaan soo dejin doonaa Node.js oo markaa ay la socoto npm oo aan baran doono iyadana waxaan saaragtaba waxaan galnay markaas Google ka galnay oo waxaan raadinaynaa markaas VS Code aan qorayna ama Visual Studio Code linki ugu horeeya website ka ayaan click leedahay kadibna download ka image ka bilaabaysaa download ka download ka normal ka installation ka waxaan sameeynaa markaas video-ga speedkiisa ayaan markaas ziyaadinayaa si markaas video u noqdo markaas video gaaban haddana waxaan isku daynaa markaa inaan soo dejino Node.js saaragtaan waxaan si toos u tagaynaa markaas Google Chrome kii qaybta hore waxaan ku qoraynaa markaas nodejs.org aan ku qoraynaa waxa ku soo baxay laba shay oo ah LTS iyo waxa ku soo baxay current version ka mar walba waxa fiican inaad dooratid markaas LTS kaas ayaa markaas dooranaysaa si markaas download-ka ku bilaabo inta markaas samaysid automatic saaragtaanba waxa ku soo baxay markaas download-kii ayaa automatic ku bilaabanaya sidii aan hore u sameeyay si la mid ah waxaan isku dayaa markaas video-ga speedkiisa inaan kordhiyo si video-gii aan u soo gaabiyo markaas inta uu qaadan lahaa sidoo kale meesha tigta aan saarayo markaas muhiim ma ahan oo tigta waad ka tagi kartaa haddii aad tigta saarto markaas waxyaabo kala dheeraad markaas ayuu ku sameeyaa download ayuu sameeyaa oo markaas ay ka mid tahay Python 3 ayuu download ku sameeyaa waqti badan ay ka qaadanaysaa fadlan marka isku day haddii waqtigaas aad haysid tigta saar haddii aad markaas helin oo iska dhaafi kartaa oo wax ma ahan wax course-keena markaas xayirayna ma ahan oo iska dhaafi kartaa waan dhameynay haddana waxaan tijaabinaynaa markaas node inaan ku shubnay waxaa leenahay node kadib dash v ayaa leenahay versionka iyo meesha nagu soo muuqanaya npm sidaas la mid ah marka haddii labadaas ay ku soo baxaan versionka si sax ayaad ugu shubtay oo waad ku guuleysatay oo course hore ayaa u sii socon kartaa